أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan u sheegayaa shacabka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida meel kasta joogaanba inaanu maanta wadno tabaruci masaajidka Al-Huda ee maaragtay East London, anagu oo haweenkii kamid ah ama macallimiintii kamid ahaa masaajidka aanu maaragtay dhibaato badan intii masaajidku naga xidhnaa aanu la kulanay. aanu maaragtay aynu ahaa hoygeega labaad u ahaa meesha keliya lagaga soo dhuunto dhibaato kasta, hadday tahay gaalo, hadday tahay maaragtay dhibaatada maciishada bankada aanu iskaga dhex jirnay. Allah subxaanahu wa tacaala sheegay wuxuu noo ahaa hoygeegii runta ahaa. caruurta wax loogu baranaysay aanu ku baraynay, waxaa waalidiinta ayaa wax ku dhiganayay. xataa waxaa jirta maasha allah hooyooyinka qaar aan weligood xitaa wax baranin baa ka aflaxay. waxaa dhacda maaragtay in marar badan ay dhacdo mashaakilka caa'ilaadka family problemka, xataa markay tahay meesha keliya ee aynu ka ogaan jirnay reerka ishaya caa'ilada ishaya inay tahay maaragtay masaajidka ama loo soo gurman jiray oo ay ahayd maaragtay meesha keliya ee lagu caawiyo caruurta iyo waalidka iyo kii buka iyo kii baahanba. Soomaaliya hadday tahay oo loo baahan yahay caawimo, meesha keliya faraysi kale ugu samayn jiray iyo muxaadaraadka inuu isaga hoygan ahaa. bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. waxaan ahay Ismaaciil Jaac Saalax. waxaan ka mid ahay dadka degan bariga magaalada London oo isticmaali jiray masaajidka Soomaalida ugu horeeya la yidhaahdo Masjid Al-Huda wa Markas Thaqaafi. masaajidka in fara badan ayaa uu halkan ka furnaa. faa'iido aad u fara badanna community-ga amase mujtamaca Soomaaliyeed ee degan bariga London iyo London badideedaba faa'iido fara badan bay ku qabeen. anigu waxaan ka mid ahaa dadkii wax ka dhigi jiray masaajidka, hadday tahay dhinaca malcamada iyo haddii ay tahay duruusta kale ka socotaba. masaajidkii waqti dhexdaasa waxaan la isku dayey in dib loo dhiso, iyadoo ay kala bateen masaajidkii iyo baahidii dadweynuhu ay qabeen. taasi waxay sababtay in aanu gaari kari weyno lacagtii amase kharashkii masaajidka ku baxayey halkii loogu talagalay inaanan gaadhin, oo kharashka ku baxayay masaajidka lagu qiyaasay 3,800,000 oo giniga Ingiriiska ah. lacagtii in fara badan waanu rays garaynay, laakiinse in doora ayaa naga dhiman. masaajidka faa'iidooyin fara badan baanu ku qabnay. waxay ahayd meel ay isugu yimaadaan dadka community-gaahi axwaashooda waxa weeyaan wax laga qabto, sida guurka, khilaafaadka waxa weeye caa'ilaadka, ciddii baahan oo waxa weeye laga caawiyo. sidoo kale dadka waayeelka ayaa fadhiisan jiray waqtiyada ay u baahan yihiin oo ku nasan jiray. sidoo kale caruurta ayaa lagu ilaalin jiray, dumarka ayaa ku qabsan jiray muxaadaraadka iyo shirarka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. taasi waxay ahayd faa'iido aad iyo aad u fara badan. faa'iidooyin fara badan oo kaloo dheeraadina way jireen. arday fara badan baa ka soo baxday oo waqtigan xaadirkaa mujtamaca meelo fiican kaga jira. qaarkoodna jaamacadaha waxa weeye islaamiga aan u diri jirnay. faa'iidooyinka faraha badani waqtigan xaadirkaa meesha way ka maqan yihiin. waxaana sababay iyada oo masaajidkii aanu dhisnayn. waxaanu codsanaynaa insha allahu tacaala codsiga yagan aan u gudbinaynaa cid kastoo arrintan waxa weeye wax ka qaban karta oo muslim iyo Soomaaliba ah. waxa targetka iyagu yahay biidni illaahi tacaala inaanu sida ugu dhaqsaha badan masaajidka u dhamaystirno. laakiin waxaanu gacan ka doonaynaa adigaagana u duubaya waxa weeye warkan iyo dadka kale muslimiintaba ah insha allahu tacaala inaad waxa weeye nagala qayb qaadataan. macluumaadka loo baahan yahay waxa weeye kilibka xaggiisa hoose insha allahu tacaala ayaa ku arki doontaan. aadna waa idinku mahadnaqayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. halkan maanta waxaan isku imaanay sacyi aan ugu jirno masaajidkii Al-Huda ee ku yaalay bariga London. waxaan ka mid ahay xubnaha runtii ku xidhnaa masaajidka Al-Huda. Al-Huda wuxuu noo ahaa hooy iyo masjid iyo dugsi qur'aan, wax walba uu noo ahaa. muddo ayuu hadda naga xidhan yahay. masaajidkaasi muddada uu naga xidhnaa
waxaa bulshadii degneed xaafadan ay tagtay faa'iidooyinkii ay dhammaantoodba ku qabeen, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay waxyaalihii loogu qaban jiray dhalinyarta, hadday tahay dadkii waayeelkahaa ee iyaguna masaajidkaas u ahaa meel ay ku nastaan oo isku arkaan. Intiiba maanta way naga maqan tahay. saa darteed wax kalena ma aha, waxaan dhammaantayd u rajaynaynaa inaan masaajidkaa dhisno. sacyi iyo dadaal baan ugu jirnaa dhismaha masaajidkaas. xaafadda waa iska kaashatay, laakiin weli halkii la doonayay maan gaadhin. sababtuna wax kale maaha, lacagtii loogu talagalay masaajidkaas ilaa iminka ma hayno. saa darteed qiimaha masaajidka sida halkan gadaasheeda ku qoran waa qiimo 3,800,000 oo kun gaadhaya. intii la hayay iminka dardar cusub baa la geshay. waxaan rajaynaynaa markaas dadweynaha arrinta tan daawanaya ama clipkan inay gargaarkaas ka qayb qaataan, iyo campaignka iyo ololaha iyo sacyiga aan ugu jirno dhismaha masaajidka. waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in waqti kooban insha allahu tacaala lagu heli doono lacagtaas. saa darteed dhammaan waxaan ka codsanaynaa in aad arrintaan nagu soo taageertaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ومهندس كله سبحانه وتعالى مركوبات مركلان وحنو مهد علينا يا دمان بشوينتا مسلمينتا الصومالي ميل كستاي جوجانبا runtii caawaalkan waxa isku ka keenay waxa weeye masaajidka Al-Huda dhalinyarada badan iyo bulshada badan ee Soomaaliyeed ee ku xidhay ee bariga London. masaajidkaas in dooraba uu xidhnaa waqti aad iyo aad u fara badan. waxa weeye waxa ku xidhnaa bulsho fara badan oo dad waayeela, haween iyo rag bale, caruur badan. runtii sidaan ogsoonahay faa'iidooyin badan ayuu lahaa. waxa weeye duruus badan baa ka socotay. anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ku xidhnaa runtii dib u dhac weyn ku yimi inta badan ku xidhnaa salaadaha markastaba laga heli jiray. waynu ogsoonahay oo meel iminka lagu tukadaa ma jirto. dhalinyaradu way meel kasta waxa weeye halka keliya wax lagu bari jiray ay wax ku qaadan jireen, ee duruusta ay ku qaadan jireen, ee wacyiga iyo maaragtay waanadaba laga siin jiray wuxuu ahaa Al-Huda. marka waxaan ku codsanaynaa bulshaweynta meel kastoo ay joogaanba inay masaajidkaas si weyn uga qayb qaataan. waxa weeye masaajidka maanta meel fiican buu marayaa, dhismihiisi wuu socdaa, warqadihii iyo wax kastaba wuu soo dhammaadeen, qacanta ayaa lagu bilaabay. maanta wuxuu inooga baahan yahay, innaga ayuu inoo baahan yahay inaynu qayb weyn ka geysano. qof kastaba inuu maaragtay qaybtiisa ka qaato. adduunyada waa ifi aakhira adduunka waa laga tegayaa, aakhira ayaa la aadaya. marka inaynu ka qayb qaadano oo masaajidka aynu gashano sidii aynu u badbaadin lahayn bulshada dhalinyarada ah ee runtii ku dayacan maxaan ku idhahdaa bariga London ee Soomaaliyeed. waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo runtii meelaha taagan, oo waa meesha keliya ee dhalinyarada laga wacyigelin jiray. bulshadu maarata runtii iskugu iman jirtay, lagu kala war qaadan jiray cidda markaa dhiban ee baahidu hayso ee markaa maarata caawimo u baahan. waa meesha keliya la iskugu iman jiray ee maarata laga caawin jiray. masaajidka waxaa runtii intuu xidhnaa baahi badan ayaa ka muuqatay bulshadii bariga London ee Soomaaliyeed ama muslimiintaba. waxaynu u baahannahay walaalayaal cid kasta oo daawata kilibkan inay ka qayb qaadato. waxaynu u baahannahay waa wax runtii aad iyo aad u yar marka la eego. haddaynu u kacno marka aynu ka qayb qaadanno oo aynu gacmaha isqabsanno yar iyo weynba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا مقعد يا يوسف عبد الرحمن يوسف مارشال oo ah waalidiinta dhalinyarada odayaasha xaafadda East London ee ku xidhan masaajidka Al-Huda. waxaan walaalaha islaamka meel kasta ay joogaan, kuwa guda jooga iyo kuwa dibad jooga iyo kuwa qolqol jooga iyo kuwa qurba joogaba, waxaan ka codsanaynaa horena intii uga qayb gashay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro. intii aan ka qayb gelina beedka Ilaahay meel ka wanaagsan wax lagu bixiyaa ma jirto. masaajidka Al-Huda waa masaajidkii ugu horeeyay ee ummadda Soomaaliyeed ka dhisato waddanka UK-ba, gaar ahaan magaalada London. waxaan walaalaha u sheegaynaa 4 sannadood iyo bar imika masaajidku naga dunsanaa. waxaanu noqonnay bacdiyaal dadkii muslimiinta ahaa ee walaalada ahaa ee Soomaalida ahaa ee xaafadda deganaa waxay noqdeen tusbax la furay. waa xaafadda ciddii garanaysa UK-ba garanaysa London waa xaafadda bariga London ugu weyn. xaafadaha ugu waaweyn bay ku jirtaa. waa masaajidka keliya Soomaali leedahay ee keliya. kiina wuu naga dunsan yahay. ceelna uma qodna, ciidanna uma maqna. wixii Ilaahay dartii aad ula baxayso waa waxaad adigu sii horeysatay. culimadaa sheegtay khayrkuu leeyahay sadaqadu. haddaan waalidiin ahaan aanu nahay waxaanu sheegaynaa dhalinyaradii ku xidhnay
waxay tuban yihiin dariiqyada waalidiintii iyo odayaashii masaajidka ku xidhnaa ay siimaanada u badnaayeen intii dee iminka hadhayna weli ogo coronaviruskii baa laayay ilaahay u naxariisto intii kalena iminka meel ay isugu yimaadaan ma jirto haddii ilaahay xanuunkan naga dulqaado waxaan walaalada ka codsanaynaa muslimiinta ah meel kastay joogtaan ciwaankii iyo akoonnadii xagga hoose ay ku qoran yihiin biliis ilaahay dartii fadlan ilaahay dartii masaajidkaa nala dhis nala caawi insha allah bismillaahi kariim waayo bal qof walooba beydkii guriga aad leedahay oo dusha maalin walba rood ku daayeen qofna ma daawan kareen laakiin tan waa beydkii ilaahay oo maalin walba dhibici ku da-ayso haddaan la dhibic la tirinna waa dembi dhammaantiin bayna wada saaran marka waxaan ilaahay inooga baryaynaa ilaahay inoo dhiso inoo fududeeyo haddii aan dee jeebka gacanta la gelin oon la hurinna wax alaaliyada wax dhismayaa ma jirto marka dhammaantiin naftayda iyo nafihiinaba waxaanu ka baryaynaa in sadaqada waalidiintii loola baxo in naftaada loola baxo in ubadkaaga loola baxo in dumarku waa horumarka iyo waxtarka soomaaliyeed waa dumarkana waxaan si gaara uga codsanayaa inay culays saaraan oo ay raggana gubaabiyaan بإذن الله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الإسلام عالم كميل كساي شوغان با waxaan soo gaarsiinayaa salaan iyo kalgacal walaaltinimo walaalayaal waxaan doonayaa halkan inaan ku soo gudbiyo baaq aan kaga hadlayno masaajidka Al-Huda East London ku yaala masaajidkaas oo ahaa masaajidkii Soomaaliyeed ugu horeeyay ee laga dhiso London aad iyo aadna loogu baahan yahay ahaana xarunta islaamka ama ummadda Soomaaliyeed ay isugu timaado wax kasta u qabsato maanta uu duusan yahay waxaana laga dhisayaa 5 dabaq oo masaajidkii 5 dabaqadood baa laga dhisayaa masaajid 5 dabaq ah sidaa darteed lacagta badankeedu waynu haysanaa waxaynu u baahannahay inaynu adduunka meel kasta aad joogtaanba gurmadka aafadisaan oo walaalayaal aad nagala qayb qaadataan haddii aan soo qaato sanadkii hore ilaa sanadkan 200 oo inan oo dhallinyaradii Soomaaliyeed ayaa mindi ku dhintay waxa mindida iyo dayaca ugu wacan iyo dhibaatada ugu wacanina waxa weeyaan haddii mid kale markii ay inamadii meelihii lagu wacdi lahaa ama meelihii la isugu meel lahaa ummadda Soomaaliyeed isugu min jirtay ay xidhmeen bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu halkan maanta u joognaa tabarucaadkii loo ururinayay masaajidka Al-Huda East London Mosque ku yaala xaafadda Tower Hamlet Stamley Green sadarkaysaan waxa dib u dhis baa lagu sameeyaa masaajidkii oo muddo ku socotay hase yeeshee masaajidku waxa uu baahan yahay gacantiinu u baahan yahay si ay hawshu ay hore inoogu dhaqsato masaajidka waxa ay xarunta qura ee community-ga Soomaalida Tower Hamlet ay ku kulmaan waxaan u ahaa masaajidkii ugu horeeyay ee Soomaalidu gacanta ku hayso ee laga dhiso London ama Ingiriiskaba sidaa darteed waxaanu faraynaa oo halkan uga gudbinaynaa dhammaan bulshada muslimka ah gaar ahaan Soomaalida meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan UK inay ku dadaalaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dib u dhiska masaajidka Al-Huda waxaan mar labaad idin xasuusinaynaa dadweynaha halkan naga daawan doona ama la socday hawshu sida u socoto in ay u kacaan masaajidka ay u dadaalaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen waad salaamantiin